galmudug ninka ay wataa ma taqaanin magaciisa geel qaad Allah geel qaad marka jaa isboortiga anaga ba haysanaba saasa koobka ku haysatiinba gogosha way soconaysaa dhiirigelinta waa soconaysaa garab istaagu waa soconaya waxaan idinka rajaynaynaa inaad guusha soo hoysaan ninka oo geel la joogay ninka water wata isku ciyaarbiya geel la jooga geeliisa iska aado idinka water haysatiin water ku soo qaata water maxaa way 4 gool arbaya gobadley markii uu garab istaagay waa guuleysatay idinkana waxaan idinka rajaynaynaa guuleysataan ciyaarta sideedaba waa isdhexgal sida hore loo sheegay xildhibaan aanooy ayaa sheegay waxaan rajaynaynaa inayna dhici doonin in garoonka dhexdiisa ama uu socodkiisa la isku qashqashaado hadduu Ilaahay yiraahdo ma dhici doonto taageerayaasha Hirshabeelle iyo taageerayaasha Galmudug waa u sinaan doonaan qof walbana si xornimo ah ay garoonka ku tagi doontaa taasina habeen dambe iyo maamulka isboortiga iyo maamulka amniga dhammaan ayaan kala hadli doonaa inaan garoonkaas iyada ah qofna marti looga noqonaynin intaas kadib waxaan rabaa kafta yar in aan idin dhaxgeliyo quarter of Talyaani way laakiin number way Soomaa waa number 4 Soomaa Galmudug ninka ay wataa ma taqaanin magaciisa geel qaad Allah geel qaad marka jaa isboortiga anaga ba haysanaba saasa koobka ku haysatiinba markii ninka oo geel la joogay ninka water wata isku ciyaarbiya geel la jooga geeliisa iska aado idinka water haysatiin water ku soo qaata water maxaa way 4 gool arbaya 4 ku soo badinaynaa marka taasna waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan maxay ahayd idinku guwaabiyo gogosha way soconaysaa dhiirigelinta waa soconaysaa garab istaagu waa soconaya waxaan idinka rajaynaynaa inaad guusha soo hoysaan balooniga koobkana wabiga lagu dabaasho wabiga la qaadsiyo lagu geeyo ilaa iyo meesha uu kaga baxayo Hirshabeelle uu kaga baxayo meeshaan balacdan ka gelinaynaa waxaan kaga bixinaynaa koobka wabiga raacinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo dabaaldegiisa kadibna waan ku soo celinaynaa waxaan geynaynaa xeebta iyo waxaan geynaynaa iyo cadala geynaynaa marka aad u mahadsantihiin insha Allah hambalyo idin leeyahay